halkan waa deegaanka Qosoltire ee koonfurta gobolka Mudug oo markaasi ka mid ah deegaanada hoos yimaada degmada Xaradheere ee koonfurta gobolka Mudug oo ay muddo ku sugnaayeen kooxaha khawaarijta al-shabaab deegaankan waxa maanta soo gaaray ciidamada xoogga dalka Soomaaliya qaybahooda kala duwan oo kaashanaya dadka deegaanka waxaana halkan ka soconaya howlgallo ballaaran oo lagu baacsanayo kooxaha khawaarijta al-shabaab oo ku dhumaalaysanaya deegaano ka tirsan koonfurta gobolka Mudug halkan waxaa galabta soo gaaray mas'uuliyiin ka socotay maamulka Galmudug waxa ugu horreyn halkan ka hadlay gudoomiyaha degmada Hobyo Cabdullaahi Faad oo ka warbixiyay socdaalka maanta ay ku yimaadeen deegaanka Qosoltire oo ay maanta soo gaareen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan aad ugu faraxsanahay in aan haatan ku sugannahay deegaankii Qosoltire oo aan ugu talagalnay shirkan jiraayid inaan bulshada gaarsiino howlgalladii inay bilowdeen sida hore u sheegnay maantana si gaar ah loo gudbay deegaano kala duwan oo ay kow ka ahayd Ceelhuur Ximbarwaaqo ilaa Qosoltire haddana waxaan la soo gaarnay oo aan u nimid inaan gaarsiino ciidanka niyadis ciidan calaf iyo coodba inta ay heli karno waxaan ka soo baxnay degmada Hobyo oo ah deegaanada yani ciidanku saldhig u ah baryahan waxaan rabaa marka inaan hadal ku dheeraado mar rabo waxaan rabaa inaan taabto oo kaliya ujeedada loo yimid waxay tahay bulshada in laga dulqaado cadawga dhibaatada ku ah waxaan leenahay bulshadu dawladdiinu waa idin soo gurmatay idinkana waxaan leedahay ka rabaa kaalinta aalidii inaad qaadataan gudoomiye ku-xigeenka gobolka Mudug Dane Qodaar oo asaguna halkaas ka hadlay ayaa bogaadiyay howlgalka ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya maanta ka wadaan deegaanadan u dhow degmada Xaradheere gaar ahaan deegaanka Qosoltire Ceelhuur Ximbarwaaqo iyo deegaano kale aad iyo aad ilaahay baa u mahadsan mar haddii shacabkii oo xoogga dawladda federaalka iyo ciidamada Galmudug hogaaminayaan ay shacabkii kacdoonkii shacabku intaas ay ku heleen ilaahay baa ku mahadsan waxaan rabnaa xoogta aan helayno inay nidaamkoodu u yahay dhagarqabayaasha saakay iyo daraad inaysan isku mid ahayn markii xoogaga dawladda federaalka iyo xoogaga Galmudug labaduba iskaashadeen cadowgaas iyo shacabka deegaanka Galmudug waa laga sifaynayaa waxaa looga sifaynayaa sifir cadile kawaariij waxaa hadda aan xasuusanno hadda xogta ku helaynaa inay garbasaara ka gadanayaan iyo duruuc amaara iyo bacadweyne iyo meelo badan inay ka gadanayaan dharka dumarka mas'uuliyiinta halkaasi ka iyaguna ka hadlay waxaa ka mid ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta Galmudug mudane Cabdullaahi Dhagacade oo isaguna markaasi sheegay in maamulka Galmudug ay ka go'an tahay in khawaarijta laga sifeeyo deegaanada ay uga sugan yihiin Galmudug maanta waxaan joognaa deegaanka Qosoltire waxaan soo dhaafnay Ceelhuur iyo Ximbarwaaqo iyo deegaano badan waxaan maantay dadkii deegaanka u aragteen inaan la soo kulannay oo si qurux badan ciidanka ay u soo dhaweeyeen oo nabadgelyo Qosoltire oo u jirta 50 kilomitir aan joognaa insha Allah tacaala howlgalkuna waa ka sii socon doona haddii Ilaahay idmo waxaan anagu garab iyo gaashaan u nahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka deegaanka iyo daraawiishta Galmudug waxaan u hambalyeeynaa anoo ku hadlaya magaca afka madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug iyo madaxda kale oo Galmudug ba in ciidamada geesiyaasha iyo saraakiisha waa guul taariikhiya Ceelhuur waa deegaan ay al-shabaab aysan si toos ah u haysan laakiin ay si gaar ah maaragtay iyo deegaanada dhan oo Qosoltire iyo Ceelhuurba ay kor ka maamuli jireen oo dadku cabsi iyo ku jireen maanta waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala inay dadku cabsidaas ka baxeen haddii Ilaahay idmo ayna u gudbeen nabad waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala shirka jiraa'id oo kan ku xigana inaan ku qaban doono Xaradheere haddii Ilaahay idmo ayagoo maamulka gobolka iyo maamulka degmada Xaradheere waa ku maansan maamulka Hobyo inay soo abaabuleen oo hawsha meeshan soo gaarsiiyeen waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socda in maamulka Xaradheere la wareegaan hawsha haddii Ilaahay idmo waana soo gaarayaan oo safar ay ku soo jiraan insha Allah tacaala howlgalladana qaarkood meelo kale ku jiraan insha Allah howlgalku waa howlgal ballaaran Cabdi Xasan Awowe warbaahinta qaranka Qosoltire